السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما في عنتين ساحبيال ما انتو حربا إنا نلو ذاقو إن قف كمركو وينا سيدا أنا وكال انتد أو داق أو قارو أو نورش كسو دماتو أو يعني دينعا أو شقادة دينعا مشغول كبدناي قريقي وحي وقابن جري وحاسو دان مركي سو يرادان ويقا عنتو كوسو قشو وقتيجي الرجين جرتي مركا يراد قرمي وينانا أو تايم بدن أن هلا وحلالو حرب أن سمينا markay gacanta ku soo gasho waqtigaasaan taaganahay maanta aniga marka waxaan igala maxaa la rabaa inaan ila wadaago situationka waqtigaas dad ma kala joogo xaalka meeshuu maraayo waxa waaye haddii aad isku dayso qofkii shalay mashiinka ahaa oo shaqaynaya haddii aad isku dayso inaad soo fariisato oo waxba aanan qabanin oo salaada duko kursi ku noqo wax yar tasbiixso kursi ku noqo quraan yar aqso kursi ku noqo يعني maalintii dhan waxa laga yaabaa 4 saac ina 4 saacadood kaliya aad waxayso 20 saacadoodna ay ku soo harto shalana waxa ahayd inaad seexato 4 saacadood marka sidee u suurtoobaysaa maskaxiyan inaad qof strong ah ama qof raaxaysanaya dadkeed aaminsan yihiin inaad tahay sidee u suurtoobaysaa marka maxaa noo tala ah markii aan 60 ka gaarno kadib oo mashiinkii istaago oo baahidii badnayd mashiinka loo qabay aanan loo qabin mar kastaba oo maxaa la dhahaa oo soo fariista meeshaan maxaa noo tala ah aniga marka waxaan ila wadaagayaa wixii aan noloshayda mar kastaba aniga aan ku horumar ku sameeyo amba aan noloshayda aan maxaa la dhahaa aan ku daabaco marka ugu horeyso qofka haddani ag fadhiyo waxa waaye waxaan soo marin nolosha hooyo kasto waxay soo marto kala dad mashquul tiro badan ciyaal la korinayo guri nolol banaan laga shaqeeyo wax kastaan soo marin haba ahaato hadda firaaqadii soo badatay marka waxaa jiro wax la yiraahdo maxaa la dhahaa Soomaaliland waxa xasuustaa xataa dadka waaweyn markii ay guriga soo fadhiistaan waxay noqon jireen dad xanaaq badan dad waxay noqon jireen dad oo farxadda ka dhamaatay qaar waxay noqon jireen maxaa la dhahaa inay hadleen xataa ay hadal ay ba sheekeen xataa ay noqon jireen marka si intaas ay kugu dhicin horumarkaana asla faaqidna maanta aniga shakhsiyan daatayda kaaga waramo aniga waxaan sameeyaa si aynan igu dhicin ama dadka aanan u dhibin shalay meesha aan soo maray oo mashquulka zaa'idka ahaa ay kulligood soo wada marayaan maanta ay marooyin maanta si aanan iyaga aanan maxaa la dhahaa ugu mashquulin aniga marka waxaan samaystay jadwal ku saabsan maalinteeda oo maalinlaha ah waxaan sameeyaa aniga horta ciyaal oo ayay aan hayaa oo la ii keenaa isniinta ilaa iyo jimcaha la ii keenaa waxaa la ii keenaa subaxdii waxaan liiga kaxeeyaa galabtii markay shaqada kasoo wada laabtaan ciyaalkaasa marka waxaan u sameeyaa iskuulaan geeyaa sidii hore routiinkiyaa weli haysta alxamdulilah oo ilmihii markaan kursanayay shaqada unbaa meesha ka baxday oo maxaa la dhahaa oo zaa'idkii ahayd subaxda ciyaalkaan iskuulka geeyaa iyadoo ah waa salaad subax markaan dukada kadib khalaas jiif ma jiro warkiisa horaan usoo labistaa dharkii aan ku bixilaa oo xalay aan saartay meel aan soo xiranaya kobiyaan soo xiranaya ciyaalkiaan sugayaa in ii keeno la ii keeno ciyaalka marka la ii keeno marka qofkii quraac u baahan oo weli oo quraac soo cunay ama kusoo yaraatay waxay u baahan yihiin aan siinaa iskuulka ciyaalka geynaa tu yaraa la soo laabanaa guriga imaanaa markaan guriga imaado oo aan quraac cunno tii yareed markay ciyaar bilaawdo aniga marka time ii soo hare timekii ii soo hare maxaan ku sameynaa timeka waxaan ku sameeyaa marka aniga videogaan soo duubtaa routiinkeyga waxaa waa video aan soo duubto ambe xataa videoga aan duubi lahaa inaan kasii shaqeeyo taasaan subaxda gashtay markaan dhameeyo taas waxaan sameeyaa intaan la gaarin 5 saac intaan la gaarin 11 intaan la gaarin kitchenkaan galaa khadadiyaan burunteynayna ani babyga israacayno way soconaysaa gabar weyn waaye kitchenkiyaan galaynaa waxaan sameynaynaa wixii aan burunteen lahayn khadadii wixii aan ugu talagalnay wixii aan sameyn lahaa markaasaan sameynaa jikada markaan kasoo dhammaano oo khadada karsano duhuraan dukanaa tasbiixdaan dhamaysanaa khadadaan cunaynaa ani iyo babydi xoogaa yaraan nasanaynaa markaan nasano kabiyana haddana sii gashano waa kabiyaan gashanaynaa fadhi ma jiro waa baxaynaa ilmihii inaan doonno waay
ilmiyaan doonayna dugsiga marka kasoo dhexeen iskuulka marka kasoo kaxeen ciyaalkii guriga aan keenno routiinka meesha ka bilaabana qadasii casir dukada maxaa la dhahaa wixii tatoosi kabaha ka bedel dharka ka bedel nolosha meesha kasii wado yacni mashquulan ahay mashquulkayga ma istaagayo alxamdulilah shukr rabbi alcaalamiin because hadduu qofka mashquul ka dhamaado ani markaan yaraa aadan waxaa ugu cabaadi jiray goormee laga yaabaa aniga anoo nasanaya waxba qabanaynin intay taallaa way dhacday sanad anoo waxba qabanaynin oo maxaa la dhahaa meel iska fadhiyo been markuu sheegayo waqti sanadkaas aan meesha fadhiyey waxaa igu bilowday inaan fikro waxaa igu bilowday inaan maxaa la dhahaa micno daro idoo qof waxba iga haleynin inaan aan noqdo qof oo ku kacsantaha camal problem inuu ku kacsantaha aan dareemo waxaan dareemay maxaa la dhahaa nolosha inaan soo jecleen inaan labisto maba rababa oo banaanka aado waa fariista meelaan fariista waxaan dhahay bismillah waxaanay dad waxaa sugaysay maxaa la dhahaa inaa firaaqo noqoto oo waxba qaban waxaa sugaysay noloshaada dhan ilaa maalintaa yaraad hooyadaa gurigeeda ay joogtid ilaa ay haddeertaan goormee iska seecanaya oo waxba la ii dirsanino oo aan sariirta iska saarnaanaya ciilkeedaa meel u fadhin jiray haddeertaa markii gacantii la ii soo geliyey stress igu furtay meesha waa ka carare marka waxaan sameeyey noloshayda inaan isfurfuro oo aan sameeyo bal aniga ma fadhin karo guriga inaan saan usoo fadhiyo ma samayn karee dad inaan caawino anina iscaawinaan sameynaan dhahay waan baxay albaabadaan furtay waxaan dhahay qofkii raba inaan ilmo u haayo soo dhawaada socdaan bilaabay waxaan bilaabay kaleentood inaan maxaa la dhahaa dadka aan u sheekeeyo waxaan bilaabay dadka inaan soo dhaweeyo 4 saac markor dadka waxay xiraayay ma rabin dadka inay igu soo maanta dhan inaan leelasha sheekeeyo la ii imaado ma rabin waxaan rabay bis waqtigii aan raadin jiray markaan yaraa oo aan dhahayay markaan weynaado kaligay waa qabaysanaa cuntaa cunaa waa labisanaa kitaabkayga akhrisanaa waa fariisanaa yacni story aan jirina iska dhadhiciyay ma dhici kartaa qof nool oo korkiisa shaqo u bartay inuu 24 saacadood oo kaligiis ku dhamaysto timekiisa waxaan aqli xumo ani aan iska dhadhiciyay ahayd marka waxaan idiin sheegayaa kursiga ka kac asxaan fal dadka maxaa la dhahaa awlaadda haddii awlaad haystaan ii keena dheh markay shaqada tagayaan ama maalintii ku mashquul xataa ama quraan bar maxaa la dhahaa haddii aad Soomaali joogto oo xataa oo aan maxaa la dhahaa oo loo baahnayn inaa ilma inaad haysid oo ilma aad korisid oo loo baahnayn maalintii xataa ciyaalka ii keen dheh isla qadeeya ciyaalka waxaa taqaana bar ilmaha u sheekee maxaa la dhahaa socod la-aad xataa ciyaalkaas ayada u tahay because adiga meeshaa soo martay shalay meeshaa soo martay oo mashquulka ahaa ee gabadhaada ama wiilkaaga ku yahay qof kale ku xiriirin nolol ku xiriirto ilmaha ku xiriirto inay hor u socdaan ay rabaan hor u socodkooda ha wataan adiga iyaga hawa ku mashquulin waxaa ku mashquulaysaa haddii ilma ayaya u tahay joogaan ilmahaaga iyada ku mashquul dad samayso oo maxaa la dhahaa ehelkaaga yacni dadka ku baahan ehelkaaga samayso maalinta isla qaxweeya isla lugeeya wax maalinle oo markasta aa qabto samayso maxaa la dhahaa haddaad dugsi ku noqo mar labaad quraan aqriskaada ku noqo tasbiixdaada tartan la gal haddii oo maxaa la dhahaa nolosha soo yaraatay maxaa la dhahaa waqti badan aadna gacanta soo gashatay waxaa ku samaysan aaweysay waxaa aniga kugu tali lahaa jidkaagii hore oo mashquulka raaso ma aha inaa maanta dhan 24 saac inaan gula joogo ana ilmaha la ii keeno kaleentood marka layga kaxeeyo shantii bar 6 ugu dambeyn layga kaxeeyo waqti badan aa isoo hare waa iska baxaa waa lugeynayaa routiinkayga caadiga nolosheeda wixii aan watiyaan subsanayaa maxaa la dhahaa marka marnaba ma dareemaysid inay maxaa la dhahaa oo the end lagu soo qoray marnaba ma dareemaysid dhammaad in lagu soo qoray yacni nolosha ilaahay dhammaad noo qoro anagoo nool caafimaad taam ah aan dadka ku caawin allah noo saalo ajir xasanad allah naga wada siiyo waxyaalaha aan dadka u sameynayno maxaa la dhahaa waxyaalaha aan jecelnahay inaan ku darsano waaye inaan isa siino waaye qof kasto ama qof dhalinyaro xataa waxaan ku waalin lahaa intaa yar tahay isbar waqti noloshaada inaa siiso ha sugin markii maxaa la dhahaa aan weynaado oo toon badan iisoo haro baan rabaa timekaas inaan ku raaxaysto ma samayn karaysid aniga hadda waa soo arkay ma samayn karaysid because bodygaaga iyo maskaxdaada waxay baratay inay mashiin ahaato
markaad tirahdina waa daminaa mashiinkaanaytod waxaa kugu soo furmaayo stress badan, waxaa kugu soo furmaayo inaad la sheekeysato adig kaligaa. maxay dadkii aan saa ugu dadaalay maxay igu fadhin laayihiin meelahanaytod, maxay igu joogi waayeen intii xagga, aaway dadkeygii, aaway dis, aaway daad. ilaahay waxaa ka barisaa ilaahay inuun ku fadhiisan adig odagaagaba, ilmahaaga noloshooda ay qabsadaan, laakiin adiga inaad isku mashquulsho zaid aa haysato wax aad ku mashquulsho. maskaxdeedana inaan ka shaqayno waayo. haddii aa yar tahayna isbar inaa hadeertaanaytod oo maxaa la dhahaa dad lee un aad ku mashquulin, naftaadana inaad time siiso, because hadhowti beri markaa weynaato markay time badan gacanta kusoo gasho waxaa ku qabataa weynaysaa, naftiyaana cariir iska gelinaysaa. ilaahay nafta cariir ma naga geliyo. rabbi subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa inuu naxariistiisa janat alfirdaws aclaa nagu geeyo. maxaa la dhahaa rabadaankana waa soo dhow yahay, salaamaad allaha nagu wada geeyo rabadaanka. aanu ku mashquulna rabadaanka xataa maxaa la dhahaa inaan jikadale aan ku mashquulin, nafteedana inaan daafacno, qur-aankan aan ku daafacno, aan ku mashquulno. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.